waxaa la ciyaari doonaa kulan weyn una dhexeeya Juventus iyo kooxda kubadda cagta ee Napoli. Juventus iyo Napoli ayaa ku ciyaari doona garoonka kooxda Juventus. Horyaalka Serie A kulankan waxaa loo arkaa midka ugu saameynta badan. Waxaa iska hor imaan doona tababare Carlo Ancelotti iyo tababaraha la yiraahdo Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo ayaa mar kale wajihi doona tijaabada ugu adag horyaalka Talyaaniga Serie A. Juventus waa koox dhib badan, waxaan idin la wadaagi doonaa 3 waxyaabood oo mar kale kulankan lagu baran doono. waxaa laga yaabaa guuldaradii ugu horeysay xilli ciyaareedkan inay la kulanto kooxda kubadda cagta ee Juventus marka la fiiriyo awoodda ay wajahayaan. Napoli oo haysata weeraryahanno muhiim ah sidoo kale tababare khibrad la qabtay ayaa wajahaysa Juventus. Juve waxaa laga yaabaa mar kale inay rikoor samayso oo ah inay badiyaan kulamo xiriir horyaalka Talyaaniga Serie A. ciyaartan Juventus waxay doonaysaa kaliya inay guul gaaraan si ay u sii dheereystaan dhibcahooda horyaalka Talyaaniga. 3 Cristiano Ronaldo iyo difaacyada Napoli ayaa mar kale sarki doona. Inkastoo Ronaldo isagoo xiran maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ka adkaaday Napoli, hadda wuxuu joogaa Juventus iyo horyaalka Talyaaniga oo ay adag tahay marxalad ahaan marka la fiiriyo sida ay kooxaha isku wajahayaan. ciyaartan waa ciyaar muhiim ah. Haddii aad Soomaaliya joogto waxaad daaban kartaa 7 habeenimo ama 1 saac oo habeenimo ay soo gali doontaa. waadna ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. fadlan qaybta hoose ee commentiga ayaad ku soo dhiiban kartaa saadaashaada kulankan.